بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقدي لبي تبناد سؤاله فيسبوك وأن كسو قادن دونا 18 سؤالود وقيبه قدام بيي na soo gaaray ka mid ah su-aalaha 18 un qaybaha kala duwan bay ku saabsan yihiin ee diinta iyo cibaadaadka iyo camalka iyo nolosha. su-aasha koowaad qofku wuxuuna weydiinayaa maxay ku kala duwan yihiin xajka marka laga hadlayo axkaamtiisa, arkaan iyo waajibaad maxay ku kala duwan yihiin. haddiise arkaanta xajka laga tago ma la gudi karaa, wax lagu kabi karo ma jiraa? waa laba su-aalood. su-aasha koowaad, arkaan iyo waajibaad maxay ku kala duwan yihiin? guud ahaan axkaamta cibaadaadka marka laga hadlayo, baabulxaj marka la joogo khilaaf badani fuqahada culimmada kama jiro in la kala qaado camalka xajka oo arkaan, tirar iyo waajibaad iyo sunno loo kala qaado. laakiin acmaasha kale cibaadaadka marka la joogo culimmada badankood ma kala qaadaan waajib iyo rugni, isku mid weeye. waxaa un caan ku ah fuqahada xanaabilada raxmatullaahi calayhim oo salaadiiyo marka la joogo waajibka iyo rugniga kala qaada. marka xajka la kala qaadayo waxyaabaha ay qasabka tahay in la sameeyo, haddii kasama si qaldan looga tagana lagu dembaabayo ama la kabayo, waajibaad baa la yidhaahdaa. hase ahaatee la'aantood uusan xajku buraynin. tiirasha iyo arkaanta xajkuna waa waxyaabaha ilaa la sameeyo xajku uusan ansaxaynin. tiirasha iyo arkaanta xajka ah, ixraamka xirashadaa kow ka ah, carafa istaaggeedaa laba ku ah, dawaafka ifaadadaa 3 ku ah, sacyigii safiya marwa 4 ku ah, waxaa 5 ku ah cinda shaaficiyati iyo fuqahadeennu timahoo la xiiro ama la gaabiyo. ma jiraa rugni 6aad oo tartiib insaan loo kala hormariyo ah, isla khilaaf ka jira wey. waayo qaarkood baa haddii la kala hormariyo asaxaya. adigoon dawaaf iyo sacyi samaynin timaha haddaad xiirto dhib ma laha. saa darteed kala hormarinta dhammaantood in la wada kala hormariyaay sidaa loo kala hormariyo waajib maaha oo arkaanta ka mid maaha. laakiin qaarkood ixraamku inuu u horreeyo carafana ku xigtaay waa qasab. markaa ka dambayso sacyigii iyo dawaafkii iyo xalqigii iyo taqsiirkii iyo kuwaa unbaa laga yaabaa inay wax isdaba marmari karaan. inta kale oo ah musdelifo la baryo, mina habeenada dambe ee 10 wixii ka dambeeya la joogoo la baryo, jamaraadka la tuurto iyo acmaal lamidihina waajibaadka wey. waxay ku kala duwan yihiin, midna waa la kabi karaa ama waa la cafin karaaba haddii xaalad timaado, midina cafisna ma galo lamana kabo. oo waa qaybta labaad ee su-aashoo rugni iyo tiir haddii laga taga xajkaasi ma asaxayo ilaa ruknigii lala yimaado. kadib arkaantu waa 2 qaybood. qayb dee aan laga daba tegi karin ilaa sanad dambe la gaadho oo wakhtigeedu dhammaada, carafo oo kaleetiyo, iyo qayb xataa haddaad safarto inaad soo noqoto ay tahay oo dawaafkii iyo sacyigii iyo ah oo aad samaysoodan xalaalba noqonaynin, wixii aad dhar xidhatay iyana uun maxduuraad iyo xaraam lagu dhacay uu noqonayo. laakiin xajkii laga daba iman karo oo lagu soo noqon karo oo loo iman karo. labadaasay u qaybsamayaan. midna dee sanadka dambe umuu noqon sida carafa istaaggeeda oo kaleetiyo, midina markaad xasuusato amaad ogaataad ka daba tegi kartaa, laakiin wax beddel ka noqon kara ma jiro. su-aasha labaad, saa'ilku isla xajka buu dhowr su-aalood oo isku xambaaxa isku raran ayuu weydiinayaa. wuxuu ka hadlayaa su-aasha qaybta koowaad. wuxuu leeyahay waa 2 qaybood aan iraahdo. habeenada
tobanka bisha marka carafo laga soo laabto habeenkii tobanku soo gelayso waxaa la yimaadaa mina markii lasoo dhagax tuurto ee lasoo tawaafana 2 ama 3 habeenoo dambe minaa loo galbadaa waajibaadkii ka mid tahay wuxuu leeyahy shucuubta muslimka qaar ka mid ay soomaalidu ku jirtaay xaddii mina way ka baxsan yihiinoo musdelifay ku jiraan arrintaasi xajkooda wax ma u dhimaysaa qaybta labaadna wuxuu leeyahy xilliga musdelifiya carafiya la aadayo iyo mina haddaad wakhtigii ka hor marto ama aad kadib dhacdaay xajka wax ma u dhimaysaa qaybta hore ah qofka mina meel ka baxsan baryaya dabcan mina barigeedu saynu sheegnay waa waajibaad hadday xaaje iyo baahi timaadana waajibka ugu dhacaa saa darteed baa nabigu alai slat slaam dadka qaarkood ama dadka biyo ka waraabinayey ama xoolihii hadyiga raacayey nabigu u rukhseeyey meel mina ka baxsan inay soo baryaan oo dadkii geela hadyiga raacayeyna xataa ramyigii 2 maalmood maalin isugu geeya waa kii la yidhi mina bannaankeeday baryeen wax dhiigoy bixiyeenna ma jirin dadkii siqaayada iyo zamzamka hayeyna iyana waa loo oggolaaday wax dam iyo hadyi iyo dhiigoy bixiyeenna ma jirin halkaa waxaad ka garatay hadday xaajo iyo baahi timaadaay waajibkuu dhacaa haddaba hadda waxaa yaallaayey dadkii xujayda ahaayey waxay ka tira bateen inta ay mina qaadi kartay mar hadday ka bateen ama qofku casiisiyo ha baryo ama musdelifo dhexdeeda ha baryee hadday xaajo timid iyo baahi meeluu ka seexdo oo laga baryaba la waayey oo mina intay buuxsanto dadkii ay ku qasbanaadaan meel ka baxsan inay seexdaan waxba xaraj iyo dhib malaa xajkoodana waxba u dhimayso ma dhibayso haddiise mina ay iska bannaan tahay oy baryi karaan mina inay baryaan baa waajib ku ah hadday baryi waayaanna jamhuurta culimmadu waxay u badan yihiin dhiig iyo hadyi baa laga doonayaa su-aasha qaybta kale ah hadduu ka hor dhaco ama kadib dhaco hordhacu dhib ma laha maalinka 8aad inay maka laga salaad subax lagu tukado ay qorraxdu kugu soo baxdaa wanaagsan xilliga barqadii ana mina la aado si duhur casar maqrib iyo cisho loogu tukado kadibna markay qorraxdu subaxa 9aad soo baxdo la sii aado carafana la galo haddii aad ka hor tagtay xilliga duhurka aadan carafo gelin markii duhurka la tukada la galo haddii xilliyadaa la tegayo ka hor la tago oo maalinkii 8aad salaad subaxa mina kusii tukado ama maalinkii 9aad salaad subaxba carafo kusii tukado dhibaato ma laha xajka waxba u dhibi mayso wakhtigaa ilaalintiisu waa sunno laga tegayna dembina maaha xajna waxba uma dhinto wax lagu kaban uma baahato hadday noqoto waan kadib dhacay halka meel ee kadib dhaceedu uu dhibka iyo waajibka dhib kale ee yeelan karo waa carafa maalintaa duhurka laga bilaabo ilaa habeenkaas oo dhan salaada subaxinta ka horaysa saacata min leylin aw nahaarin mid ka mida inaad tagtaa la rabaa haddii waagii maalinka 10aad saa uu kaa bariyo carafo tegitaankeedu alxaju carafa waad weyday inta kale wakhtigii haddii laga soo hormaro waad carafo intuu istaago qorraxdoon dhic inuu soo baxo musdelifo yimaadaaye inta kale agtarkeeda iyo haalibkeedu sunan weeye waxba u dhimi maysa hadday dan iyo duruuftu keento iyo jidadka ciriiriga ah iyo daduu ku xirnaayo oo lagu qasbayna iyadana dhibaato ma laha su-aasha 3aad iyada lafteedu xajka ay ku saabsantaha wuxuu leeyahay qofkii qof kale ka xajinaya maxaa shuruudoo laga rabaa waxaa laga rabaa un 2 arrimood oo asaasa arrinta koowaad naftiisa inuu hore igu xajiyey qof aan tiisa ka xajin qof kale kama xajin karo nabigu alai sala slam xadiidka ibn cabbaas ee sunanku wariyeen waa kii arkay nin lalabayka can shubruma ilaahu shubrumaan ka xajinayaa wuxuu ku yidhi shubruma waayo wuxuu yidhi waa walaalkay ama qof aan qaraabannahay su-aasha waxaa loo weydiinaya dee shubrumuhu isaga isula jeediyaana war looma hayo ilaan qofkan magaciisa lama yaqaane labayka can shubruma markuu yidhaahdo dee ilaahu hebel baan ka xajinayayo adi magacaaga aad sheegaysa way dhici kartaa marka saa darteed nabigu faahfaahin u weydiiyey oo su-aasha intaan xukunka la saarin waa la hubsadaa wixii hubsi u baahan wuxuu yidhi waa walaalkay ama qaraabe xigta anna wuxuu yidhi aduu ma xajiday markaasuu yidhi maya xuja can nafsik uma xuja can shubruma taada ka xaji kadibna shubruma ka xaji taa waa qodobka koowaad ee laga rabo
qoftiisa ka xajiyey inuu yahay wey. midda labaadii markuu xajka xidhanayo ee labeyka uu leeyahay inuu ula niyoodo hebel qofkii ahaa ama qofkii heble ahayd qofkii kale uu ka xajinayey inuu ka xidhanayo inuu niyoodo wey. haddii kale xajku can nafsihi buu niyadu noqonayaa. saa darteed cinda alixraamina waa inuu qofkii kale ka xirtaa uu ka niyoodaa isaguna horey uu soo xajiye. su-aasha afraadii isla xajkay daba socotaa. wuxuu leeyahy xajku 3 qaybood weeye, qaybtee baa ugu fadli badan. sa xajku waa ifraad iyo qiraan iyo tamatuc. ifraadku waa qof xaj keliya xirtay oo isagii ku adkaystay ilaa uu xajkii dhammaystoon ka hor cumraysanin. qiraankuna waa un isaga oo kale laakiin xaj iyo cumruu hal mar wada xirtay. tamatucuna waa qof cumraystay oo xalaal noqday kadibna xajkii markuu soo galay xajiyey wey, isku safar. kabaa u fadli badan? waxaa u fadli badan tamatuca u fadli badan. nabiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu u badan tahay nusuustu qiraan inuu ahaa iyo xaj iyo cumro u wada xirtay. laakiin sida bukhaari wariyeen min xadiidi jaabir radi allahu canhu wa ardaah, xajka markuu ka hadlayey nabigu waa ka yidhi low istaqbaltu min amri ma stadbart maa suqtu lhadyi. haddii aan horay u ogaan lahaa waxyiga iyo cilmiga xajka hadda la ii waxyooday, intaanan soo xiran aan ogaan lahaa xoolo ma soo kaxeeyeen. haddaanan soo kaxaynina waa xalaal noqon lahay oo dadkaa mutamaticiinta ee xalaal noqday baan ka mid noqon lahaa. laakiin qof soo xirtay hadyina wada inuu xalaal noqdo looma ogola. saas darteed nabigu wuu tamaniyey, wuu jeclaystay inuu sida dadka tamatucay een hadyi wadin uu noqon lahaa buu jeclaystay. wuxuuna ku sababeeyey in waxyiga iyo cilmiga hadda soo gaaray gadaal looga waxyooday ee fadliga anwaacda xajkiihi markii hore waxyi loo soo waxyooday uusan ahayn oo ziyaadatu cilmin waxyooday. waxyiguna maalin iyo saacad iyo usbuuc buu u soo degi jiray. axkaamta mid cusub kolba nabiga loogu sheegi jiray sala allahu alay ali wasalam. su-aasha shanaad waynu ka baxnay xajkii iyo su-aalihiisii. qofkani shahaada bugu rabaa inuu gato. wuxuu leeyahay qof jaamacad ka soo baxay baa macallin ii noqday. wixii jaamacadda uu ku soo akhristoo dhan ayuu i baray. shahaadadii jaamacaddaas haddaan gato ma dembi baa? haa. shahaadadu waxbaad taqaanaa, waxaan ma taqaanid kama dhigna. laakiin waxay ka dhigan tahay waxaan ku soo bartay jaamacaddaas, iyadaana ka soo baxay bay ka dhigan tahay. markaad warqadda suuqa ka gadatahay waxa warqaddani ay sheegaysa ee jaamacaddaas u akhristay uu ka soo baxay, intaasuu derajo keenay oo jaamacaddu ay saxday, waraaqihiina ay siisay. ma run baa mise waa been? waa been. shaqadaan ku heli iyo haddaan aqoontii aqaaniyi waa baab kale. xukunka shaqadaas maxay noqonaya wixii ga soo galay masale kale waayo. laakiin ma ka been sheegi karaa shahaado beena ma qaadan karaa? shahaadatu zuur inay kugu noqotaaba dhici kartaba. su-aasha shanaad, qofkani wuxuu leeyahay waxaan ognahay shuruudaha nikaax weli iyo markhaatiyaal baa ka mida. waxaan joogay goob wax lagu guursanayo, dad badan baan ku joogno ku dhegaysanaynay, laakiin 2 qof oo gaar markhaatinimo loo qoray ma jiraan. ma saxaya markhaatina ma wada noqon karnaa? haa. markhaatigu in la qoraayo hadhow yaa la tix raacaa ama dukumentiya waraaqa la qorayo maxaa yaa lagu buuxiyaa unbaa looga jeedaa. laakiin markhaatiga sharcigiihi inaad goobjoog tahay waxa dhacayana ogaanayso ood maqlaysa wey. hadhowna aad markhaati furi karto. marda dad badan ku joogteen intii maqlayso oo dhan markhaati weeye sharci ahaan. nikaaxana wuu asaxayaa. qof kastoo ka mid ahna markhaatigii wuu furi karaa. hadhow markhaatigiisa ma la qaadanayaa? waxay ku xiran tahay isagu markhaatigiisa sabab lagu diida ma jirtaa oon munaasabado kaleoo kala duwan kaga hadalay. su-aasha 7aad wuxuu leeyahay dariskayga gaalka xaq ma igu leeyahay? haa. xaqi darisnimadu kugu leeyahay. hadalkii nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarihuhu. jibriil igama daynin dariska inuu dardaarmayo ilaan is iri iyagaa dhaxalkaaga yeelanaya. iyo tii nabigu yidhi wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min. 3 ku dhaartay inuusan iimaan fiican lahayn.
markii la weydiiye waa qofkaana uu yidhi man laa yamanu jaaruhu bawaa'iqa deriskiisu ninkuusan dhibaatadiisa ka nabadgelin ma kala qaadin xadiidtaasi derisku ma gaal baa ma muslim baa ma sokeeyo qaraabo ahaa mise ma aha lama kala qaadin xuquuqda caamka ee deriska uu leeyahay bay leeyihiin derisku intaa hadduu muslimnimo ku darsadana xaqii muslimnimadaa ku darman hadduu qaraabtinimo kusii darmadana xaggii qaraabtinimadaa kusii darman kaa qaraabadii gaalna waa noqon karaa muslimna waa noqon karaa xaqii qaraabada keliya hadduu ku darsadoon muslim ahaynna xaq deris iyo qaraaba kugu yeelan oo raximka qaraabada dee in la xiriiriyu isna mudan yahay gaalba ha ahaadee markii xaalaad laga reeba laga soo tago saa darteed derisku wanaajin iyo xiriirin buu kugu leeyahay walidaalika saxaabadu waxay ka dardaarmi jireen deriskooda gaalka oo xoola hadday qashaan in deriska wax laga siiya gaalka oo yuhuud iyo kiristana bay dardaarmi jireen ridwaanullaahi calayhim jamiican qofka kale saa'ilka sideedaad wuxuu leeyahay xoolo baadi aan helay oo ari ah oo isugu jira ido iyo riyo ama ari cad iyo ida isugu jira muddona waan hayaa waana ku rafaadsanahay maxaan ka sameeyaa waana naadiyo waan raadiya dadkii lahaa haddii muddo sanada uu naadiyo wuu milkin karaa tilmaamahoodana wuu aqoonsanayaa haddii uu maalin ay soo baxda dadkii lahaana wuu u gudayaa hadday joogaanna waa siinayaa haddii kalena waa xoolo ilaahay siiyey nabiga sala allahu alay ali wasalam markii la weydiiyey ariga baadidiisa wuxuu yidhi hiya laka aw liakhiika aw lidi'bi ama adaa qaadi oo intifaacsan ama walaalkaabaa kuugu iman ama heli oo ay ka lumeen ama waraabaa bannaanka ku cunaya ruwaag iyo yeydaa bannaanka ku cunaysa waa xoolo jilcisano waraabaha yaryarka iyo bahalka duurjoogta yararka u fudud inay dilaan saa darteed qofku wuu qaadi karaa inaad xifdidood naadisana waad u qaadi kartaa markaad qaadda kadibna fil asaxi cinda asxaabina shaaficiyad haddaan nahay intaad milkido ama aad iibiso ama aad qalato tilmaamihiisana xifdido naadada waad wadi kartaa haddii aad hesho qofkii lahaana waad u gudi kartaa haddii aad weydana xoolaad milkiday bay noqon karaan saa'ilka sagaalaad wuxuu leeyahay salaadda duruufaha looga bixi karo waa imisa dabcan salaadda haddii la galo waajibka ah iyo cibaadada waajibkaa soon ha noqdo in la dhammaystiraa waajib ah haddaan dan iyo duruuf sharcigu ogol yahay oo looga baxay aanay jirin ilahina subxana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tubtiluu acmaalakum camalkiinnii ha burinina acmaasha waajibaadka ahee la galayna waajib bay noqotaa in la dhammaystiro sunno in la dhammaystira waajib noqoto cindanaa shaaficiya haddaan nahay xajkaa jira masaa'ilkan maalikiyada iyo fuqahada qaar ku kala duwannahay ka mid tahayoo oo sunanku haddii la galay in la dhammaystira mawaajib baan xajka ahayn dee madaahibta culimmada iskuma raacsana qaar baa ku dhihi doona sunnada xataa waa waajib inaad dhammaystirto walidaalika saaxibu almaraaqi waa kii maalikiyada xataab tilmaamayey والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا أبيادي كترنا لكن وأتم الحج والعمرة بان لنا عمل كائن لما يسترى واجب وحال لو قبحي كرا عذر دار شرعي أو ضرورات طبعا wixii salaada jabiya hadduu kugu yimaado gabadhii caadaa ku dhacday oo salaaddii ku jirta qofkii weysadii baa ka jabtay ama uu xasuustay inuusan weyse qabin dee qofkaa salaad sharcigaaba kuma jiro laakiin qofkii salaad sharciga ku jiray imaamkoo dheereeyey baa ka mid a salaadda kugu dheereeyey sidii ninkii mucaad ku daba tukanaya nabiga calays xilligiisii riwaayadii muslim waa kay ahayd insarafa uu ka baxay salaaddii keligii baa xirtay oo dhammaystirtay waxaa kaloo looga bixi karaa salaadda wixii daruuraad ah ilmaha dab ku dhacaya ilmaha meel ka dhacaya dab iyo waxbaa meeshii ka kacay wax daruuraada hadday yimaadaanna qofku salaadda waa jari karaa qof biyo ku dhacay wuu badbaadinayaa daruuraadkaana waa loo goyn karaa asalkuse salaaddii in la ilaaliyo inay waajib tahay wixii aan daruuro sharci ahayn fuqahada waa itifaaq intaan ogahay oo khilaaf kama jiro saa'ilka tobnaad wuxuu ina leeyahay haddaan xaaskayga ku dhaho waxaa haddaad samayso waad iga furan tahay
haddaan idhaahdo ama waxaa haddaan sameeyo waad iga furanta muddo maanan samayn arrintii inaan ka laabtaan rabaa buu leeyahy saa'ilka sidee baan arrintii shardigii aan xiray uga laaban karaa masaladani waa talaaq mucallaqa waana nooca fuqahada ay u yaqaanaan alxalif biطalaaq oo dhaartii bay macna ahaan la wadaagtaa waxaa inaadan samaynin ama aad samaynayso ama ama aadan yeelaynin wixii ka dhalanaya diidiya yaalis bay la wadaagtaa masaladaasi tacliiqu طalaaq marka la yidhahdo cinda jamaahiiri ahli اlcilmi intaan garanaya si looga laabtahay ma jirto xalku waxaa weeye inaad iska ilaaliso haddii aad samayso adoo xasuusan dalqadii way dhacaysaa ee waa tegaysaa si looga laabto oo shardigii waan ka noqday la yidhaahdo ma jiraan cinda jamhuuri اlfuqahaa wuu jiraa qowl cinda alfuqahaa ee daciifa oo odhanaya waad ka noqon kartaa saa'ilka ko iyo tobnaad wuxuu leeyahay qof cilmiga yaqaana miihi laakiin wixii khayr aan soo maqlo dadkii sidii inaan ugu sheegaan jeclahay ama sidii aan u sheegayo ereygii haddaanan isticmaalina mid la macnaan isticmaala ma wax dhibaa ku jira midda kale wuxuu leeyahay dadkii waxaa dhib iga haystaay waxyaaba la soo duubay iyo video wanaagsan iyo codr wacdiya haddaan u shido waa la iska sheekaysanoo waa la mashquuli filin kale iyo ciyaariya haddaan u daarana waa la wada daawanoo waa la soo wada jeedaa iyadana dhibkaana waa sheeganaya masalada hore qofku ereyga hadduu xasuustana wuu u sheegi karaa macnihiisii haddii uu hubo uusan macnihii waxba ka bedelayninna wuu sheegi karaa dabcan aayad macnaheedu sidaa ahaa iyo xadiid macnihiisu sidaa ahaa wuu dhihi karaa weligeed ban shariicadii iyo diinta iyo dacwadu aan carab ahayn baa la gaadhsiin jiray macnihii qur-aanka iyo sunnadaana loo sheegi jiray masalada tafsiirka qur-aanka iyo riwaaya bilmacnaa xadiidkiiyana ay ku timid oo cajamkii dadkaan carabta ahayn lagu gaadhsiinayay carabta dhexdeedana riwaaya bilmacnaa ay timid oo ereygii erey lamida booskiisa la gelin jiray wey taasi dhibaato ma laha khayrka fidintiisana de waa laynaga wada rabaa wixii yar iyo aqoon badan inaad leedahay qasab maahane nabigu waa kii slam balliquu canii walow aaya tan dadku ay mashquulayaan dabcan shaydaanku dadka ma daayo wacdi baad ka hadlaysaa iyo salaaddii buunan ku daynaynin ood hareeraha fiirin iyo mashquulinuu ku dhibayaa oo qofku kolba meel isha uu ku xadayaayo nabiguna ku tilmaamay hareeradayga salaada ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alcabdi waa dafid shaydaankiio kolba dhinac khushuucdaada iyo qalbigaaga iyo indhahaaga u dafaya wey marka mashquulkaa laga mashquulayo mar taasi way noqotaa adiguna waxaa lagaa rabaa inaadan ku badinin dadka ood wakhti ku habboon iyo marmar uga dhigto si wixii intay dhibsadaan aynan u nicin ibnu mascuud markay ku yidhaahdeen wacdiga maad noo bedisid wuxuu yidhi maya nabigu kaana yatakhawaluna almawcida makhaafata asa'aamati calayna nabigu wacdiga muddo markii la joogaba wuu na wacdin jiray marmar buu na wacdin jiray muxuu inoogu badin waayey inaan ku daallo oon ka noognoon dhibsannuu ka baqay dadku saanay kuu dhibsanni wixiina ugu xiisoodaan marmar uga dhig laba wax dheer ha uga dhiginoo wakhti badane wax kooban saddex wax rootiini oy ka daalaan ha uga dhigine wax u kala badbedel marka xikmo ay u baahan tahay mawcidadu iyo wacdiga iyo khayrka fidintiisu saa'ilka laba tobnaad wuxuu leeyahay waxaa jira laba qof oo walaalo ah oo xoola dhaxala isku lahaa iyagiina carruur bay leeyihiin iyagoon dhaxalkii weli qaybsan ayaa walaalihii mid dhintay carruur buuna ka tegey carruurtaas dambe dhaxalka wax ma ku leeyihiin haa markii hore labadii walaalaha ahayd ee wada noolayd baa la dhaxal siinayaa kadib kii dhintay baa xoolihiisu carruurtiisi iyo dadkiisu dhaxlayaan walaalkii wax ma ka soo geli doonaa way dhici kartaa hadba dadka uu ka tegey inta ay yihiin iyo qaybaha noocyada ay yihiin buu ku xidhanya dad asxaabulfuruud casaboo ka xiga haddii la waayo furuudkii muqadarka ahayd oo faralkii xoolihii dhammaysatana la waayo famaa baqiya falowlaa rajulin dakar inuu noqdo way dhici kartaa saa darteed walaalkii dhintay iyo kan nool baa la dhexal siinayaa kan dhintay wixii ku soo aada ilmihiisaa la dhexal siinayaa marka haddii dhexalka la qaybinaya walaalkii wax ka soo galana dee ciddii culimmada meeshaa joogtaa inuu geli kariyo in kale kala go'aaminaysa
saailka 13aad wuxuu leeyahay waa qof dumara waxay leedahay ninkayga yaa baasaboorkiisii dharka lagu dhaqay kasna ma ahayn isna waa xanaaqayoo markaasuu diintayda caayay anigana waxaan ku yidhi waan kaa furnahayba mar haddaa diintayda caayda waan kaa furnahay asagiina markii dambe wuxuu ku dhaartay inuusan diintayda caayin arrintaasuu ku dhaartay cidnana lama joogin cidna uma sheegin mar hore ayay ahayd waana iska dhaafay haddana shaki baa i galay bay leedahay gabadhani sababtoo ah inuu caayey baan hubaa ee maxaan sameeyaa masaladu waa laba qaybood marka koowaad diinta caayisteedii hadduusan xasuusanin oo uu yahay qof intuu carooday waxa uu ku hadlayay aan ogeyn waxba isagaba xuguna ma qabto axkaamulmajaaniin buu noqonayaa rafica alqalamu can halaathatin waxaa ka mid ah can ilmajnuuni xataa yacqil qofka maankiisu maqan yahay ilaa uu soo miirsado saa darteed qofku caradiisu hadday gaarto in wuxuu sameeyey iyo wuxuu ku hadlay uusan waxba ka xasuusanin ama usan waxba ogeyn wuxuu lahaa isla ogeyn cayna looma qabto reerna kama furmo qaybta labaadi waxaa weeye haddiiba ay dhacday inuu ka sucaayey diintoo kas loo caayay waa lagu ridoobaa waa lagu gaaloobaa xukmu ridda markay timaadda reerkuna reer isdhaqday oo xiriir gogoleed iyo gogol isku arkay ay ahaayeen ciddaa bilaabata muddadaa ciddada lagu jiro ama uuray leedahay ha ku ciddo tirsato ama caadadii dhiiggii ha ku ciddo tirsato ama bilihii ha ku ciddo tirsatee axkaamtii ciddada sida lagu sheegay muddadaa kadib haddii labadii qof midkoodii diin ka baxay rag iyo dumar oo diintii dib ugu soo laabtaay reerkii sidiisiiba usii dhaqmaa keliya waxaa un looga baahnaa isaga haddii uu kasuu sameeyey inuu soo laabto oo ka towbad keeno intaa unbaa looga baahnaa xiriirkiina si toos otomaatiga buu u soo noqonayaa reerkii sidaa ku dhaqmana dhibaato malaha wabilahi towfiiq taasi waa su-aal qoyskay ahayd su-aasha xigtana qoyska waay gabadhani waxay leedahay ninkayga aan kala tagnay wuxuu igu furay 2 dalaaqood reerka iyagii baa soo dhexgalo inay isku kaayi celiyaan bay rabeen ninkii markii lala hadlay halkii rajactu laga filayey yidhi tii saddexaadna waa ugu daray tii saddexaadna way ku furanta muddo kadib ayuu leeyahay oo dib uga shallaayayo reerkii iyo ilmihii waan rabaa ayuu leeyahay bay gabadhu leedahay ciddadiina way dhammaatay maxaa xal ah masaladani waa 2 qaybood oo marna waa masalatu talaaqi الhalaaث marna waa ciddada dhammaatay masalatu talaaqi الhalaaث 3 dalqadood ma israacaan weeye masalada nuxurkeedoo hal ciddad ma isugu tagaan masalo khilaaf badan ka jira weeye muddo dheerna soo jiitamay marar badan saan sheegnay aniga asaxul qowleyn ee naska u dhow hal dalqadun baa dhacaysa markaas 2 dalqadood isku ciddo ma galaan hadduu 2 yiri iyo hadduu 3 yiri iyo hadduu 1 yiri oo mid labaad ka daba tuuray oo mid saxa ka daba geeyo hal dalqadun bay ciddadaa noqon sidaa haddii la yidhaahdo xilligaas dalqad dambe uu ka daba tuuray meel lama laha tii hore hadduu 2 yirina halun bay noqon kadib ciddadii hadday dhammaatay guur iyo nikaax cusub baa u furan hal dalqadi way dhacday dee 2 igu furaydu hadday isku mar ahaydna halkaa unbaa dhacday hadday mid hore oo jirtay ay ku darayso oo isku noqdeen mid labaadna ay taa noqotana hal dalqadoo hadhay isku qabayaan wixii baaqi u ahaa bay isku qabayaan laakiin nikaax cusub oo markhaati iyo meher leh bay samayn karaan saailkii 15aad wuxuu leeyahay waxaa ay go-aan gacanta midig atixiyaadka markaa la taxiyaadsanayee tashahudka iyo shahaada ashhadu an laa ilaaha laleeyahay fartaad bidix ma taagi karaa maya sunnadu gacanta midig weeye haddii gacantii midig ay go-an tahay maxalkeedii wuu zuulay sunnanimadeeduna midigtay ku xidhnayd bidixan lama taagi karo hakadaa nasa fuqahaa'una shaaficiyadu imaamu nawowi rag kaleba raxmatullaahi calayhim waxay ka hadleen gacantaa go-an fartii ma la taagayaayo ma lagu atixiyaadsanaya lafteeday ka hadleen masaladaasi sunno maaha waayo sunnadu gacanta midig iyo weliba fartaa keliya ku xirnayd gacan midig keliya meehe oo dhan meehe hadday fartii go-an tahay ta ki xigta ma la taagayaa maya
tii sharcigu ugu talagalay ee loo qoondiyey hadday maqan tahay waa sunnay ahayde maxalkii iyo booskii iyo sunnada wixii loogu talagalay in lagu sameeyaa maqan saas darteed sunnanimadiiba way ka baxaysaa niyada uun khayr iyo ajir wanaagsan allah ka siiyo su-aasha 16aad ee su-aalaheenna maanta facebooka ka midka yihi xalaqada 12aad saailkani wuxuu weydiinayaa wuxuu leeyahay dadkii tahriibay bay ahaayeen gabadh baa ka geeriyootay gabadhii wax dhaqaal la waayey oo dumara iyagoo ragaa dhaqay sidii bay ku aaseen arrintaas diintu maxay ka qabtaa hadal su-aal dheero intaa murtideedu tahay bay ahayd kadib waa kanfeen waa lagu tukaday waa la aasay masalada in lagu tukado oo la kanfo oo la aasaayey arrin loo baahnaa bay ahayd masalada dhaqitaankuse khalad bay ahayd iyagoo rag ajnabi ah qof dumar oo ajnabi ah inay dhaqaan lama ogolo sida nin hadduu dhinto haween dumaroo ajnabi ka ah aynan u dhaqi karin maxaarimtaa muran ka taagan yahay laakiin masalada hadda taallaayo waa dad ajaaniba ma u gebagabayn lahaayeen maya nin ajnabihii qofkan dumarka ah taabashadeedu waa ka xaaraam haddii la waayey dumar ama rag maxaarim u ah ama nin qabay la waayaay sideedaasaa lagu kanfayaa ummada korka intii lagu dada korka lagaga qabanayaa sidaasaana lagu aasayaa sidaasay ahayd laakiin iyagu dadaal bay ka ahayd aqoon la-aan hadday u geysay dadaalkay dadaaleen insha allahu tacala inaan dembi yeelan baan rajaynaynaa laakiin ma saxnayn dhaqitaanka ay dhaqeen saailka 17aad ama su-aasha 7aad waxay leedahay waxaan u fahmay qof dumara weeye waxay tahay khalad gogol dhaafaa ka dhacay waa laga yaabaa reer mayna lahayn ama qof dhalinyaro ahayd ama markaa xilligaa ka dhacay reer ma lahayn kadib bay nin guursatay ninkiina umayna sheegin arrintaa inay dhacday waxay leedahay ma dembi baa haddii aan ninkayga ka qariyo waxaan leenahay jawaabtu asalku waa maya laakiin mar bayna bannaanayn asalku qofku hadduu dembi ka dhaco inuu is asturo wey haddii qofii ogaadana satrulmuslim waaye qofka muslimka ceebtiisa in la qariyo wey isaguna ilaahay u toobad keeno ilahay u toobad keenna ciddii ogaatay ay tiraahdo waxba ninkay guursanayso kama duwana nin khalad ka soo dhaco qof dumara guursanaya inuuna ku qasbayn inuu sheego inuu is astura loo baahan yahay biniadamku waa khaldamaa towbada ilahay abwaabtiisuna waa waasac ilaah iyo aadam waxay ku kala duwan yihiin khaladkaad ka gasho aadamuu khaladkaa ka gashaay inaad u sheegto isfadeexayso lagu ogaada wey ilaahay laakiin khaladkii aad ka gasho keligaabaa u toobadkeenaya oo baryi ceebtaadina way ku asturaan saa darteed gabadhaasi ninka inay u sheegtahay waajibkumaha mana ficna inay u sheegto allaahumma hal mar maahane haddii meeshii wax la qarinayo ilmo iyo uuruu jiro hadduu meeshii ilmo jiro uusan ninkii dhalin inay u qariso ma bannaana ama inay guurka ka cudur daarato ama ay u sheegtay ilmo saasa inuu jiro waayo ilmuhuusan dhalin oo lagu abtiriyey waddowsan maxramayn maxram u noqday waddowsan dhaxalkeeda yeeshay wixii dembi ay ka yimaada iyadaa qaadaysa waciid axaadiid ku soo aroortayna way jiraan sixadeedii inay sugan tahayba muran ha ku jire saailka u dambeeyaay iyo su-aasha u dambeeya wuxuu leeyahay su-aal dheeraan karto laakiin aad u soo koobi doonno wuxuu lee jira waxaa jira urradiireed badan wuxuu leeyahay ictisaam baa jira wahaabiyaa jirta akhwaan baa jira iyo wixii lamida haddaan ka madax bannaanaadoon midna ku biirin diintu maxay ka qabtaa way bannaanta waajib maaha ku biiritaankooda asal ahaan sunnana maaha ma bannaan tahay magacaa dheh ama magac kale dheh wixii tacaawun khayra qofka uu ka geysan karo way bannaan tahay tacaawunka ama ha noqdo suuro iyo qaab inaad ka mid tahay ama ha noqdo adoon ka mid ahayn wixii khayra masaajid baa la dhisayaa agoon baa loo gargaarayaa dad baa la heshiisiinayaa sulxi baa lagu jiraa wixii khayr iyo wanaaga samayntiisa wixii shar iyo mafsadaa ka hortageeda cid kastaa la kaashan karaayo urura ama aan ahayn cid aan ahaynna waa iskaashan karaan tacaawunkaa weeye sharcigu waxaa waajib si guud ummadda ku ah adigana laga yaaba si gaara inuu waajib kugu noqdo ama sunno noqdo hadba hawshan inteebay kaa maarmi kartaa iyo inteyna kaa maarmi karin waajibaadkii kifaa'iga ahaa goormay cayn noqdaan goormayna noqonin masaa'ilkeedii tegaysa dee hoos markii faahfaahinta loo galo dhacdada iyo duruufta ku xeeran axkaamta sharciga lagu qiimeeyo ururada inaan ka mid noqdaay oo aan ka mid noqonin oon bannaanka ka jooga ma ii bannaan tahay haa wax diinuhu kugu waajibinaya ama sunno kaga dhigayaay ma jiraan
haddana xaalad kaloo marka adiga kugu xeerani aynan jirin de xaaladdaasna sideeda in loo qiimeeyo waxa ku xeeran sharciga lagu miisaamo bay u baahnaan marka la sheegaana xukunkeeda la ogaan kara lakiin asalku maya waajib kugumaha sunnana kugumaha waad ka madax bannaanaan kartaa bannaankaadaad joogi kartaa keliya ilaahay ka cabsoo toosnow wixii khayr iyo wanaagana ka shaqe intaasaan kusoo gabagabaynaynaa su-aalihii xalaqadii 12 ee toddobaadkan barnaamijka facebooka intaan xalaqada xigtay isaga imanayno sidaa iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh